soodimaha maamulka SSC Khaatumo waa xuduudaha gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Xamse wuxuu sheegay in maamul kasta oo la sameeyo uu u baahan yahay procedure iyo ijraa'aad la marayo. waxaasina dastuurkay ku qoran yihiin fikrad ra'iisul wasaaruhu uu wata maaha. Inta aan dul istaagin ninkii firdhiya ahaa oo maanta hadlay dad badan baa qalbadu jabtay inta uu ka tagayna firdhiye ana caawa daaha ka rogayo habeenka wax la qarin jiray maaha. waxa kale barnaamijka qaybka ah nabadii gobolka Mudug oo si toos ah u burburtay mudugna ay noqotay meel colaadeed. xalay waxa lagu dilay laba nin oo beesha Sacad Saciid u dhashay wiigii horena waxa lagu dilay nima jartana lagu dilay. iyadana waa dul istaagaya cid colaada dabada ka riixaysa iyo arintan waxa ay salka ku hayso. haddii aan ku horeeyo ninkii firdhiya maanta waa hadlay waxa uu sheegay in hartina xuduud uu kala leeyahay wuxuu kaloo sheegay xuduudaha SSC Khaatumana waa sheegay wuxuu kaloo magac dhabay oo afka uu aad ugu balaariyay inay dastuurka Soomaaliya ay ku qoran tahay wax jeebka ra'iisul wasaaraha ka soo baxayna inaysan ahayn halka markii xaaladdu maraysa marka horta in maanta ogaadeen uu ra'iisul wasaare helo waxay sharaf u tahay warsangeli iyo dhulbahanta waagi hore waxaan ka shaqayn jirnay markay tagaan xamar in bidixda lagu salaamo ama lugta dhexeba in lagu salaamo oo aan si maqaam leh oo dad deegaan leh oo waxna diidi kara waxna yeeli kara inaan loo soo dhaweyn baan waagi hore xataa kharash baan ku bixin jirnay Puntland kharash ku bixin jirtay mar walba waa laga hor istaagi jiray dadkaas oo rabitaankooda waa la diidanaayo dad inay dowladda federaalka la macaamilaan loo ogolaan jiray ma ahayn sida saxda halka markii xaaladdu marayso sababtaas oo la maxay tahay u fiirso deegaanada SSC Khaatumo 25 sano Puntland ay degan tahay hal ay tuso hal mashruuc oo deegaanadaas iyo dadkaas ee Puntland u fursay hal wada jirta wadada erga wadada Eldaahir wadadaas dadka beesha warsangeli dhaqaalaheeda ku dhisatay warba joogta warsangeli baa anaga oo oo hartila dhaqaalaha naga aruuri jiray Puntland Cabdulle maxaa algaas baa dhagax dhigay waagaas ugu dambeysay xogaa dhuruq oo lagu daro intii kala Soomaali dadka waxooda iyaga la daala dhacay maalin kastana mashruuc kasta lagu soo daraa wadada Eldaahir wadada Eldaahir wadada Eldaahir wadada Eldaahir baa lagu leeyahay waxay Puntland deegaanada ay tartay isbitaal ma geen oo MCH ma geen oo caafimaad ma geen markay maanta ayooda ka tashtaana baraha bulshada ay iyo afximaa looga fadhiyaa waayaan daro dadku waxa lagu yahay ixtiraamka wada dhalashada walaalnimada qofku waa inuu abaal celin yaqaan waa inuu abaal maalin Soomaaliland kama celin maalin Soomaaliland tan uga fiican wallahi diin warabbul Kaaba Soomaaliland ba u fiicnay deegaanadaas iyagoo Puntland 15 sano oo Sool gacanta ka maqnayd la sacaano ana indhayga soo arkay mashaariicda Soomaaliland ka fadhisay iyo biyo-gelinta wayaabasa dadka u darnaato oo balaayadaas ku dirto dadka oo Soomaali hadiido laakiin mashaariicda meesha Soomaaliland ka fadhisay ilaahay xaq lagu caabudaan ku dhaartay subax la sacaan laga soo baxay inuu ay badan u soo joogay baan iska hadlay maahay ragii xiif altar socday oo laga soo saaray baan ahaa waliba waxaan saarnaa maanta qori dashishuu leeyihiin dajiil dhijray dadnima dhaqanka iyo markuu dhacayo quruxda lagu dadka ruuxa isbartaan kulay badeymada kabada gaarigaas maantaas xataa gaarigu intuu naga gubtaan qorigii aan kala deganay gaari kala saarsan waa joogay subax xiif altar laga soo saaray la saxanood ilaa wadaan hal mashruuc aan dadka u fulnay cadaab hubkoodii iyo hantidoodina waxa qaatay Cabdulle Yuusuf dardaarankii uu sheegay Cali Khaliif Galeer uu yiri wareerkaas halka degan ee Puntland sheeganaya ama reerkii uu sheegay Maxamuud Saleebaan inaysan dadku waxba u ogoleen iyo waxba u ogoleen inay ka haraan baxta dadka qaatay bil aadka dukaata tashto waa laga haray horta ra'iisul wasaare Xamse iyo beesha ogaadeen maalinta ay kursigaas heleen ba hadii leel ka satahay oo tanada ah haddii nimankan hartiga nala tahay haddii daaroodka kale xataa jiid waa ku dar ay tahay niyo maalintaas nalaga raystay maxaa la helay ninaan dadka waxa wada dhalashadooda oo matalaadooda ninaa u diidanay xasan sheekh maxamuud annagu wiil ahaan baa u nacabnayo 200 jeer buu carabka ku celceliyo oo yiri Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadkaas waa dad Soomaaliyeed weey rabitaankooda noo muhiim ah halka kuwa anaga nala dhashayo markay kursiga fadhiyaan la weydiiyay roodo waa adag tahay roodo iga dhahay weydiinay yaa laga baqayaa 43 xildhibaan oo Isaaqa laga baqayaa oo jooga meesha la dhaho xamar jooga oo halka fadhiya anaguna meeqaan leena Puntland iyo Jubaland isku daro waa dhayihiin waa 66 weey marka la isku daro 120 baa wax ka baqaynaa 40 anagoo ah warway dhixiriyo dharar ee leerma doolaane
dadkaas maanta warka uu firdhiya sheegay dad badan ba xasaasiyad ka qaaday maxaa saa u leedahay ma hartiba xuduud kale leh hartigu xuduud waa kala leeyahay hartigu xuduud waa kala leeyahay haddaa adigu hartinimada diido haddaa wada diido aan wada cunno hadda keligeed cuntay keligaa celceli keligeed cuntoy keligaa waxa kan alcesho laakiin firdhiya maanta boogtu taabtay oo ah inaan xuduud kala leenaha waa run wey xuduud baanu kala leenaha xad baynu kala leenaha saddex maamuloo harti aanu maakhir waa harti khaatumo waa harti puntlandna waa harti nin kasta tiisa ha deeqdo maxaa adiga dadka marka hadba qola barida u saaraysaa dadka xoog baa ku leedaha kuma lihi dadka xoog ma kulihi dadka waxay rabaan mashaariic bay rabaan horumarin bay rabaan caafimaad bay rabaan haykel dawliyay rabaan cadowga aan lagu fiirsan bay rabaan rabitaankooda in lagu shaqeeya rabaan waa dadku waa daalayaan haddii la daalana dadka xoog kuma lihidniyo maanta reer aan soomaaliya hubaysan male marka halka waxaa uga mahad celinayaa beesha ogaadeen waxaa uga mahad celinayaa ra-iisul wasaare xamse waxaa uga mahad celinayaa firdhiye oo runtii runtana taabtay waxaan kada uga mahad celinayaa shacabweynaha hartiyeed baa uga mahad celinaya ee dhammaan maanta ama shacabka daarood ee ra-iisul wasaaraha shalay lagu diray ee lacagta loo adeegsaday ee ii sheeg ee la aflagaadeeyo deegaanadiisa loo diiday maanta garab taagan halkan uga mahad celinaya dowladda federaalka taageeraan leeyahay oo tolkayo ciidamada qorta oo tolkayo etoobiya iyo anaga soomaaliya soomaali baynu anaga etoobiyaan ma nihin oo dalku la dagaalanka shabaab ku jiraaye la dagaalanka shabaab maanta ito ha ka haray ninkii ka hara haybta daarood kama dhalan hayb soomaalina kama dhalan tolkayo dhinac ka raaca dowladnimada yaan oday xun oo siyaasi iyo mid xun oo tuuga qol isaga kaa xaraysan sidii xayawaanka wallaahi anigu maalmahan xayndaabka qabiilka baxaan liibaanay hurdo caafimaad qabtaan helay waxaan helay ummadda soomaaliyeed oo karaame iyo sharafan ka ag helay nin baa qol isaga haddaa qof qol isku xirataa waa dhibaato international noqo caalamka qof la haystaa noqo reer ma reer la-aan baa maanta ku haysa oo reer ahaan baad u baqaysaa waa may marka dhinac ka raac ra-iisul wasaarahana warkiisa qaata xamse ninkaasi waa lagu xadgudbay soomaalinimu raadinayaa waa nin garanaya xorriyadda iyo gumaysiga waa nin yaqaana wey etoobiyana waa degaa kenyana waa degaa soomaaliyana waa degaa waa nin labadaba garanaya nin maanta waxaan hoosoo lagu khaldi karaa maaha fadlan muuqaalka sii gaarsiiyo meel fog ka tuura daaqadaha uga tuura oo tiimamkaas la ognahay daaqadaha uga tuura waxaa xalay magaalada gaalkacyo banaankeeda lagu dilay ama gobolka mudug lagu dilay laba nin oo u dhalatay beesha sacad siciid horta ninkan waa garanaysaan magaciisa waxaa la dhahaa liibaan shuluq waa nin sacad siciida weeye waa jaadwale waa ninka jaadka keena weeye lacagta jaadka uu ninkaani ka shaqeeyo waa ninkii kharash ku bixiyey in beesha leelkasta la weeraro oo nimankaas habargidir ama hawiye ay weeraraan leelkasta inay weeraraan ninkii ka shaqeynayay weeye waa ninkii jicbuur iyo saaxa qurun dharbaaxyooyinka loo keento leelkasta kaga soo dhuftay wey maxaa leelkastaba u magac dhabayaa dhan muumin aadan ninkay indhaha kusoo dhufteen weeye ninka hadda sawirkiisa arkayseen magaciisa waxaa la dhahaa liibaan shuluq waa ninka hubka beesha mareexan u gacan galay isagu iska lahaayo hubkiisiba difaacan waayey wey oo hubkiisi ay mareexan ka qaateen uu soo watay isku dirka galmudug iyo puntland isku dirka beelaha halkaa wada degan ninkii ka shaqeynayay wey horta ninkan magaciisa waxaa la dhahaa liibaan shuluq waa la dhahaa magaciisa waa garanaysaan idin bari maayo wuxuu la baxaa darlii baawar buu la baxay baawar baan leeyahay baawarku haysto waa maxay waa lacagta jaadka wey waxaa dhacday marka ninkaani colaadii xagga ka jirta jicbuur locationkada uu soo wareejiyey isaga iyo maha salaadna waa ka midaysan yihiin shalay waxaa isleynayay wagardhac iyo waxaa isleynayay iyo niman saleebaana qayb buu ka yahay si qoorqoor ninkan uu dhiiqo u geliyo yaa la dhiiqada la gelinaya waa qoorqoor laakiin dadka puntland mid bay ku baraarugsan yihiin 5 sano oo dowladdii farmaajo jirtay iyo 5 sano oo qoorqoor meesha fadhiyey calan galmudug inaan nabad ka wada shaqeyno maahay inaan dadkan iyo deegaanka lagu soo weerarin inaan reer miyiga degan mudug ama reer miyiga puntland iyo u dhaxeeya galmudug inaysan isku dhicin inta uu qoorqoor joogay ilaahayna waa ogyahay ummadda meesha degantan waa ogta laakiin liibaan mar hub laga qabsado mar colaadii jicbuur oo saraakiishii xataa guutooyinka qaar ka mid a ciidanka galmudug uu dagaal geliyo oo qoorqoor xanaaqo oo qoorqoor uu yidhaahdo maxkamad baa soo taagayaa ina gumeedkan baaburta la isla gaar maalmahan waa taa idiin sheego gaalkacyo waxbaa kasoo ifbaxaya mid kalena waa idinkugu darayaa ninkii liibaan shuluq la dhahoy dani waa heshiis
wax kale heshiis laguma aho qodobka wali waa ku sababeynaya ama qaado ama adigu diid iyadoo jecbuur xabada ka socoto oo saaxa qurun xabada ka socoto waa laba deegaan oo Puntland dani iyo colaada ka hadlay mi arta ama baaq ka soo saaray amay laakiin kuwa dani la shaqeeya iyo dani teamkiisaba waxay ka safnaayeen dhanka waxay la safnaayeen nimankan kale ee sacadka la safnaayeen sababta uu la safnaayay waa maxay liibaan shuluq iyo dani waa heshiis waxa heshiis lagu yahay in qoorqoor kursiga laga tuuro qoorqoor marka kursiga laga tuuro xildhibaanada uu liibaan shuluq soo xuli doono oo dani ma haduu aado way federal buuraba ama haduu saadina inuu dawladda federaalka ku mucaarado xildhibaanadaas intuu mishaar Puntland uga qoro laakiin qoorqoor haduu soo laabto waxay isleeyihiin ninkii farmaajo ahaa baa ninkan hadda ka hor abaal gashtay qoorqoor waa nin abaal celiya abaalkii uu qoorqoor loo galay baa laga yaabaa nin Reexad Saleebaan oo ninko Reexad Saleebaan hadda idin sheegayay hawiyaha mid bay kaga gedisan yihiin haddaa maalinkoo biyaa wax ku siisay lagama yaabo inuu saxanka wax ku siisay ninka Saleebaanka ku xaaro ama gabadha Saleebaanka waa dhaqan Saleebaanku ay leeyihiin way gooysuus dhaafsanaya ma wanaag u gashay mise xumaan u gashay haddii wanaagaagu horeeyo adoo xumeeyay baa laga yaabaa ninka Saleebaanka 90% shuwa inta ka aqaan reerkaas inuu wanaag kugu bedelo haddii adoo xumeeyay way oo xun oo dhaqan xun adiga oo wanaag adiga oo markaa xumeeyay inuusan wanaagba ka qaadan marka qoorqoor waxa lagu tuumayaa in uu soo celin karo ninkii farmaajo ahaa haddii uu soo noqdo xildhibaanada uu soo xulan u dhahayo warinkaas waabu dhisay bowdarageed maalin mid baa qaawale dhisan ninka inuu oran karo baa laga oranaya taasa marka waxay keenaysaa liibaan shuluq iyo dani inay saaxiibin qodobkaas si qoto dheer muu fahamta marka dani marka isaga maanta gaalka ay jooga waa uu ku raaxaysanaya colaada mudug ka soo ifbaxaysa ninka dani aad buu ugu raaxaysanaya 200 jeer buu ku raaxaysanaya waa una rabaa nabadda mudug inay burburto sababtu waa maxay ninka maanta kursiga Puntland boobay xildhibaanadii iyo isimadii Puntland boobay ciidamadii Puntland amishaarsin qofka wanaag ka sugaya baa horta aniga dani iga badiya qodobka iga qabsada dani ninka iga badiya waa ninka dani nabad ka sugaya way dani noole ka fulaysan ilaahay ma uumin marka isaga liibaan shuluq colaada waa ku wada socdaan in qoorqoor dhiiqa la geliya weeye wax kale lama xalayna labada nin waxa loo dilay aano wiigi hore dhacday oo ay sacad ku geysteen oo liibaan shuluq uu dabada ka riixay maanta aana waxa dhacday dani uu dabada ka riixayo oo isaga liibaan shuluqna isla og yihiin shacabka mudug degan mid baa ugu baaqaya marka waliba khaasatan reerkaas xagga degan baan u baaqaya hawiyaha idinka mid baa idinkaga fiican yahay maalinta kursiga heshaan maxaa la idinkugu shaqaystaa maxaa dhibaato iyo colaad mudug looga dhaliyaa maalin allah maanta nin hawiyaha kursiga fuulo su'aasha wali ma isweydiis kuwo liibaan shuluq oo kala ah oo caloosho shaqaystayaal ah oo annagoo ku shaqaysanayna aan xasan sheekh dhiiqa ku gelinaa jooga maalinta uu farmaajo kursiga helana deegaanadaas nabad bay noqotaa waa xuduntii Soomaaliya waa cudii Soomaaliya waa meel la eeganayo way iyadoo ay saa tahay baa waxaan ka dagaalanaa in uu ninka farmaajo ay daaroodka u dhiiqa galo idinku qabka ma leedin marka problemkeeda haysta waa qabka inaydan lahayn أو ندار وضع ولين نتركي شعب هذا كقرر معي لكن نو وناق أمد الصوماليين يوناقين الربنا واحد نتركي قري قدر ركوا راعي كلامه والله مسؤولة واحد بدن أسوي شوية وعية لكن تركيا دو خلدية ديكر ولا طلبة خلدنتي ما أنت كتشوجة وما أنت ما أنت إني ما ولا ليس منكم رجل رشيد من ليش إذا كسب به معي مية إذا كمركب ما دام عندنا إذا كم تركيا عتين كنت إذا شيء ولا عاد مزق لجوضه وعمل حسن الشيخ محمود يا رئيس وزراء حمزة الولي قينا يوي وعمل له دجالن كإثيوبيا يوحد رقم وهيدل لقول برتشبينه يوي حيلنا الديدة بيراها هالك عدكن عدل الكسيه هذي داروديه هذي أويه هذي دريه هذي دقيق مرفليه وسوى ذا شراء وباقي يا ودك على إثيوبيا با ويلاش الرماني إذا كقرى الصومالي إذا كحوق دلك الصومالي يقرأ نودنا كوضع الشقية ودنا كنا الدور شقة في عذر بالعادية ويل كستقري قديك قرن كقاضو أجاسمه هالشيء وزير هالشيء بلايك له هالشيء دل كان إتكالم يلا وورك حسن
lagto muuqaalka meel dheer bay geysaa loofka anigoo yacquub siyaado bahallaa igaga daata fiidowga adigu soo gaaran waxaan kaa codsanayaa inaa iga sii shargelisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu